أنا أكو سافرت بس الحمد لله إلهي يقوم هذه ما هي اللي بنت إن شاء الله إلهي يقوم هذه هاي بل من وحاول خاص إما نافع كره يسوق لا كورما waxaa inta kugu dambeysay والله مش شيء كره سيدات بيرو تكهر أي وضم بيسي bulshada Soomaaliyeed inta badan waxay arkaan inta xabadu dishay ee Soomaaliyeed iyo kuwa ku dhinta qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho balse ma arkaan dhibaatada ay geystaan dhaqaatiirta ajnabiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo aan la xisaabtamin qaar badan oo Soomaaliyeed ayaa dhulyaal u noqday balse aan codkoodu warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu aysan soo bandhigin balse warbixintan waxaad uga bogan doontaan mid ka mid ah dhibanayaasha dhulyaalka u noqday dhakhtar ajnabi ah oo ku sugan dalka isla markaana dhibaato u geystay jirkiisa iyo gaar ahaan naftiisaba caafimaadku waa laf-dhabarta bulshada ilaalintiisuna waa badqab ummadeed markii ay dawladdii dhexe ee Soomaaliya meesha ka baxday wax walba waxa ay noqdeen tusbax go'ay caafimaadka dalkana dayac badan ayuu lugaha la galay hadii ay wax iqabo waayeen ku calacalay isbitaalo badan ka bacdi aan la sii xiriir waxaan ay dhibkaan ah haysto isbitaalada u tagtay maxay ku sheegay isbitaalka ku soo naafeeyay oo ku soo celaday aad ay ugu yiraahdeen isbitaalka sida ku yaala aad asaga ku xalin kareen asaga ma ku laabatay asaga hadaan ku laabto uu soo areebo wuxuu yiri waa fiican tahay ordo oga tag Soomaaliya waa dal ay ragaadiyeen colaado wajiyo kala duwan lahaa dadkiisana ay ka soo gaareen dhibaatooyin maskaxaaneed iyo mid dhimashaba wadanku waxa uu noqday mid cid kasto aan dalka u dhalan u soo shaqo doonato qaar ka mid ah bahda caafimaadka ka shaqeysa ayaana ah mid ay dadka Soomaaliyeed dibana u noqdeen xag dhaqaale iyo dhinac takhasusba iyadoo aan wax hubin ah la marsiinin shaqaalaha caafimaadka ee ajaanibta ah ee dalka soo gala wadanka waxaa ka howlgala cusbitaallo badan oo isugu jira kuwa taya ahaan la hubo iyo qaar bulshadu ay dhib ku qabto jiritaankoodana waxyeelo badan u geystay bukaanno u soo doontay adeegyo caafimaad daadir waxa uu ahaa shakhsi muruqmaal ah isla markaana nolol maalmeedkiisa ka raadsada dhisidda guryaha balse hadda waxaa dhulyaal ka dhigay mid ka mid ah dhaqaatiirta ajaanibta ah ee ka shaqeeya mid ka mid ah cusbitaalada magaalada Muqdisho waxa uu inoo sheegay in uu tagay cusbitaalkaasi balse qalin lagu sameeyay kadib laga soo celiyay isagoo oo dhulyaal ah daadir xanuunka haya oo hurdo iyo hooyaadba u diiday waxa uu sii dheer in mid ka mid ah xubnihiisa uusan meel ku sheegin bulshada Soomaaliyeed ayuuna ka dalbaday inay garab istaagaan oo ku caawiyaan wixii ay awoodaan markay aqaleen xaalad adag weeshan inay xiranto hal habeen iyo hal maalin ay joogay ka bacdi waxay iska bax 15 casho ka bacdi uu soo laabay waxaan ku iraahdaa 15 casho ma qofka la qalo isbuuc ugu badnaa isbuuc haduu u bato maqnaada ma la yiraahdo wala kontaroolaha balse wax ka yihiin waxay u yiraahdeen 15 casho ka bacdi soo laabo waan ka soo tagay alxamdulillah waxay yiraahdeen aniga xaalad adag oo si adkaatay saxar ma leh wax ma leh aariye ma leh xanuun badan dareemaysaa wacay 15 casho ka bacdi aan tagay soo adkaysay anoo dhiban hadaan tagay waxay yiraahdeen waa fiican tahay orod iska bax waxaan fiicnaan ma ay tahay habeen hurdo maalin ma harsado xanuunka ahay waa ay sii bat nima ilaahay ka cabsada aniga saar ma han si ay dhaama qarash wixii dhalaa waxay sidii ka qaadateen caafimaad idinka soo doontay caafimaadkina cudurkii ahay mid ka sii weyn ay ugu dhacay nima hoose wax wadaan hore ariga dabadaas cariiri saxaraday u ahayd cilad kala ma qabin isku mar ogeyn gaasaan isku ogaad bis walax jirkeyga caafimaad guud mid aan marin malaha walax gaas ka badan ma qabin gaas ay uu ka jir mar oo uu kacano iska diji jiray daawadiisa aqaana oo doctor dufli iyo qore ida isticmaal jiray nabadeeda naga jiray wax kale cilad isku ma ogeyn adigoo socotaado anigoo socdaan nafmada lagu tagay daawada iyo soo qaranaa gacanteeda ku soo qaatay daawadiyaan qaatay isbuuc ka bacdi ma way ireen isbuuc ka bacdi hadaan tagay qale على ما هاس يجمع هالرجل وإحنا نحرم حتى أريد هرئيس يسبح ويس أنجار مركي عن عوضنا وحب أي قبنا في إيران في عنها حلا دوسي أتكات هذا كسر دونت أنا عاوسين أنا الدويسين قرش كوحنا وطي أنا عارف ما تريس الحالة دي اللي يقدر آخر نلاش عقل قوس اللي يجارسيو ما أقاوه هاي كل يهين عوضك متك أو ترجمان كواه تركي غلي حلي رهده عبد واحد اللي يرهان جعلها مس عبد حفيد مو هاي هذا حالة دي أتكاتي دي أنت أصوب بلوسيد بلاد يكبضنا ميل آلا هذا أي واحد يقبل وينوك عليه isbitaalo badan ka bacdi aan la sii xiriir waxaan ay ribkaan ah haysto
isbitaalada u tagtay maxay kuu sheegeen isbitaalka kusoo naafeeyey oo kusoo coladeeyay aaday ugu yiraahdeen isbitaalka sidaa ku yaala aad isaga ku xallin kareen isagii ma ku laabatay marka asaga haddaan ku laabto uu soo areebo wuxuu yiri waa fiican tahay orada uga tag cilad kala qabtaa uu yiri nabar kala kugu yaalo uu yiri nabarkan igu ma oolinayo waana ficnaa nabadeedaan ahay nabarka kale ee kugu yaala ma kuu sheegeen magaciisa nabarka waa kana warqadan dhacaan uga qaaday nabarkan wuxuu soo jarjaray saxarada masqadii ma wasiirki aniga aan soo ogaay isbitaalkan aan geeyay waa la soo baaray hadii la soo baaray infection xumaado waa yiraahdeen wasiirka lafsigiisa waa infection soo ma anu alad kale isku ma ogeyn alad kale ninka ma qabiyo infection waa wasiirka oo qalad iga qalay dabata iga ma horeeyay hadda dhibka ka cabanaysa dhibka aan ka cabanayo hadda wuxuu yahay waxa aan halkaas ma dhaafaan caloosheeda dabadii salkii dambe intay ka go'day ee tubada ee gudaha ku carartay ilaha iga sarreeyo dabadii meel good oo iska duulaysan way tahay waa jir caadi ah laakiin tubadan kuma dhagano tubada gudaha igu carartay tubadeeda halkaas ay joogtaa waxaan aniga cilad ugu noqdaasi kor ay soo galaan mooyo hoos ma aadaan har cunadii aan ka go'o oo mashaariic nafta aan ku ilaaliya kaliya jirkeygana xayo qamarjiya ahaa alxamdulilah shukru fil caalamiin 8 bilood ee ay dhibaateen asaan dhan u laaday waxaan meel u ciirsadan lahaa meel u baxsada mal ehelkayga waa fuqaro aabiyo hooyo iyo ma noolo waxaan ahaa nin iska miskiin xoogiis ku xamaasha ahaa jir nimankaana ilaa fi halka soo seexiyay ilaahay iyo qadaray ilaahay wuxuu ii qadar asaan ku shukrihaaya markaa ma shaqaysan laakiin waa shaqaysan jiray guryaha dhisi jiray faryaabaan ahay anaa nin dadka kaalmay oo saacid ahaa jiray maantana ilaahay wuxuu qadaray inaan aniga aan tuugsado inaa ku sawirtid bas alxamdulilah ilaahay ku mahadaya ma heli doonto insha allah ilaahay ku mahadaya bal waxaa culo hoos ima dhaafaan kor ii soo galaan goormaa waxaa inta kuugu dambeysay wallaahi ma sheegi karo 8 bilood ka hor ay ugu dambeysay maxaa horta wax soo baxaan albaabkii dhamaa la jarjaray asaa lagu cayaaray maxay kuu qaaday xididadii oo dhan isku xirxirmay asay isku dhageen asay isku duubsamay asaa dhinacaan dhan neerfanka lugtaa ma dhaqaajin karo gacanta bidixda ilaa wadnaha oo jiidma halkaas aniga laba barka jeexaas oo dhan neerfa amalan ka ahay xanuunka igu qabanaysa marka qaar bulshada Soomaaliyeed iyo walaalaha muslimiinta waxaa uga digaa isbitaalkaas inaysan ku sirmin waxaan uga digaa 100% isbitaalkaas inaysan ku sirmin aniga ku naafoobay aniga nolosheeda ku waayay aniga nolosheeda qoys ka taagan maanta aniga meel u ciirsada na qarashaysto ama ehel caawiya qabo oo maanta dibadda isu qaadi kara ma isbitaalada gudaha mid walba saa u tagay waa aan ku daaray mid waxa iga qabto aan ka waay asagii u laaba kaliya leeyahay asagana uu soo ariyay walaalaha muslimiinta ah hadday awoodaan quraasho aruurta waxaa la bulaa weyjiita walaalaha muslimiinta ah tabar la isku mano midkii hal door awood midka laba awood midkii saddex awood quraasho aruurta bulaa weyjiita hadday iskaashada oo ay soo gurmadaan waxaan qabaa in ilaahay de maxaa leeyahay adooma qaar qabo oo muslimiin oo akhradooda jecel inuu ilaahay isu adeejiyo ilaahay ka tuugaya Zakariya Maxamed Salaad, Somali TV.